qodob waxa weeyaan wixii shalay dhacay diyaaradda wafdiga siday ee lagu muransan yahay ee dadku ku konfiyuusay inuu siday ahayd iyo sidii wax u dhaceen aan ka hadlo oon istu taago qodobka labaad waxa weeyaan maxamuud xaashi oo sabab weyn ku leh maanta na siyaasadda ninka ragga horboodaya ee actifeka ah labadaa qodob baan doonaya isu taago oo aan kala maarmin aan bilaabay diyaaradda shalay timi soo baxday ee siday wafdiga muhiimka ah ee Ethiopia waxa laga celiyay hawada maaha wax la dafiri karo wax walba sidayiin in loo sheego ayaa sax hawada ayaa laga celiyay diyaaraddina amarkii way qaadatay sida looga celiyey ee lagula hadlayna waxay ahayd sidii saxda ahayd ama sharcigii u yaallay ka baxsan oo la odhan karo waa burcad cireed sababaha keenayna waxay noqonaysaa diyaaraddu charter bay ahayd diyaaradihii isticmaali jiray garoonkan iyo pilotskii isticmaali jiray ma ahayn sababtaas ayay u dhacday in markii khalkhal la geliyey uu madaxdii uu siday aawadeed u noqday maaha markii ugu horreysay ee sidanoo kale ay dhacday xilligii koonfurka haddaan dib idin xasuusiyo wasiirkii aviationka ee Soomaaliya wuxuu ku dhawaaqay in hawadu xidhan tahay amarkaa markii uu bixiyey dhulka hawada ku xidhayaan Somaliland iyo Soomaaliyaba ay ka mid yihiin uu yahay waxa ay isku dayeen diyaaraddii Ethiopian Airline inay joojiyaan hawadu waa laba oo waa ta hoose iyo ta sare hawada hoose waxa maamula madaarka diyaaraddu ay ku degayso permissionkana waxa bixiya cidda madaarka haysata hawada sarena waa ta diyaaradaha see gooshaya dee dhulka ee aan hawada maraya ay isticmaalayaan amarkii dowladda Soomaaliya ay ku soo rogtay diyaaradda xilliga koonfurka way joojin kari weyday diyaaradda Ethiopian Airline maalin qurana ma istaagin intii ay xamar ka xidhnayd iyo dhulka Soomaalida ee kale way soconaysay laakiin waxay joojiyeen oo aan la dafiri karin fly Dubai oo markii iyana la baadhay la ogaaday in ninkii aviationka haysan jiro maxamuud xaashi ahaa permissionka ay diyaaradduba ku imanaysay Somaliland oo isagu aqbalay oo Soomaaliya u ahaa taasoo markii dambena dowladdeenu ay diiday inay timaado ilaa ay permission Somaliland leedahay sida diyaaradda Ethiopian Airlines oo kale ay ku timaado yacni halkaas waxa ka cad oo markhaati leh inay isku dayday dowladda Soomaaliya inay joojiso xilligaa una suurogeli weyday tan maanta dhacdayna wandayga ay dhacday mooyaane dib u dhici mayso anaa idiin ballan qaadaya inaanay dib u dhacayn maalintaa la celiyey hadday wax u taraysa iyo haddii kaleba dib u dhici mayso waan idiin ballan qaadaya xogtaan hayo wufuuddii imanaysay ee heshiiska labada dal ku imanaysay ee Ethiopiana way imanaysaa indhihiinana waa ku arki doontaa in this week from markaa imkaan idla hadlaya way imanayaan waxa kale oo aan idiin ballan qaadaya in hawada Somaliland
mar dambe aan laga amrin xamar ama aanay soo fadhiisin doonin diyaarad dambe xalkeediina meel baa lagu tiray Ethiopia iyo heshiiska Somaliland dhex marayna wixii dhacay ay shalay sameeyeen way ugu badinaysaa Somaliland ficil baana lagaga jawaabaya ficil hortiina iman doona oo ay dibinta farta dhexda ka qalili doonaan ayaan idin ballan qaaday wiiga iyo wiiga ku xigana waxa arki doontaan oohintooda waxa la yiraahdaa sabta weyn joogto himilada barbaa la qarsadaa oran maayo maalin heble imanaya iyo sidaasaan sameeynaa laakiin waxaan idin ballan qaadayaa from today wiiga iyo wiiga ku xiga in wax badan isbedeli doonaan wufuudina iman doonto diyaaraduhuna iskaga gooshi doonaan meel walba hawada Soomaaliya ay maanta leedahay waanu ka xidhnaynaa aan dib u xidhin doonin oo meel lagu tiiriyo arrinkeedii waa ballantaas waxaan galayaa qodobka labaad oo ah ninka arrintan badhigay inuu yahay Maxamuud Xaashi in la xuso oo laga hadlaa ay sax tahay Maxamuud Xaashi wuxuu ahaa wasiirkii aviationka ee dowladdii hore Axmed Siiraanyo waxa kale oo ahaa wasiirka awood badan wasiirada kale oo kaalintii markaa xirsi buuxiyey oo la odhan karo prime minister buu ahaa isagu wax bedela waxna magacaaba oo fursadaas u helay kuma helin aqoon kuma helin daacadnimo kuma helin karti wuxuu ku helay wax ma odhan karaa dee waa nasiib iyo chance iyo fursad u helay maxamuud hawada Soomaaliya dhex taallay ee burburku maalintuu dhacay ee Somaliland iyo Soomaaliyana ay kala tageen waxa gacanta ku haysay hay'adda ICAO oo dhex u ahayd Somaliland iyo Soomaaliya isku awood bay ka taagnaay isagaa u loogay oo ka campaign gareeyay sidoo adduunyo u heli laana halka ay la gashay sidoo lacag buuran u heli laana isagoo mustaqbalkii ummadda uu ku matalayay dhaafsaday wax faraguudkooda waxaan doonayaa inaan caddayntii oo markhaatiga uu furayo wasiirkii aviationka xilligaa Maxamuud uu u gacan geliya hawada Somaliland ay la dhageysataan Mr. Chingali come on wada hadalkii Soomaaliya ayaa kow waxa laga dhigay in hawada ay noqoto Maxamuud Xaashi waxa loo soo idmaday inuu full authority hawshaas Somaliland u soo dhameeyo inaan maaragtay halka dhameeyo marka waxay siyaasadda Soomaaliya waa lagu gaari doonaa laakiin waxa hadda inoo yaala oo u baahan wax ka qabadka ah waa tan maaragtay muhiim ka ah waayo la isuma socon karo dibana ka dhici kara aad bay noola qaateen runtii Maxamuud Xaashi nin wuxuu ahaa aad maskax furan nin geesi ah ahaa runtii wada hadalkii Somaliland baa xagga wixii looga soo dhigay runtiina waxay ahayd waxaan aan soo wada ceshanno inagu hadhowta haddana ku xisaabtanno marka soo wada ceshiga la soo wada ceshanayay heshiiska aniga isagu aan saxeexnay waxay ahayd inaan anagu dadkayga u dhashay magacan Soomaalida ah oo hadda sii wada jooga hawadeena aan hadda sii wada maamulano ayaa waxa la isku afkartay hawada aan ka wada shaqeynahay siyaasadeena kale iyo hawlaheena kale meesh wuxuu waa farsamo waxa maaragtay haddii inagu ka shaqeysan weyno wataan kaaga sheekeynay Soomaalida waqooyi laga keenay koonfur laga keenay meel kasta laga keenayo waxa laga yaabaa 800 bishi ay qaadanayeen mushaara nin ajnabi ah oo Kenya joogay meeshii ka qaadanaya isaguna $20,000 bishi qaadanayay waa waxaagii hadda wuxuu isagu oo ku fadhicilanayo taas marka aragtideeda waxa noola noqotay waxayna intaan soo qaadano inagu aadho aan kala qaybsanno aan hawshan wadano marka wada hadal la'aanta hadda waxa keenaya in hawadan la isku qabsado wada hadalku baa istaagay wada hadalkii baa istaagay marka meel laga bilaabo ma laha marka waa in la isku qabsadaa way hadii wada hadalku jiro waa la wada hadal xornaa maxaa khaldan xagee wax sanay in baahi weyn loo qabo in hawadii maamulkeedii dib loogu soo celiyo gacmaha Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaanu mudaynaa waqti
aynu kagala soo wareegayno qaramada midoobay oo gacanta ku haysa oo mas'uuliyadda resolution security council ku leeyahay gacanta u geliyay 1993 xilligii Dr. Boutros Ghali uu xogeyaha guud qaramada midoobay ka ahaa resolution la oran jiray 914 oo oranaya inta dawlad Soomaaliyeed oo awood leh oo maamusha dhammaan territory-ga Soomaaliyeed la helayo waxaa mandated loo siiyay inay trustee noqoto UNDP qodobkaas markaa qaramada midoobay iminka ku haysa in January 2015 hawadii lagu soo wareegay waa dhageysateen wasiirkii duulista hawada ama aviationka ee Soomaaliya xilligaa Mr. Jingeli oo markhaati cad oo wiilkiisa aan ka daba haray Maxamuud Xaashi murankaa maanta isagayna geliyey inaynaan dad ahayn oo aynaan waxba ahaynna waxay caddaynaysaa ninkii waxa inoo geystay inuu weli ina hor joogo oo siyaasaddii Somaliland hunguri ka hayo taasi waxay markhaati u tahay inaynu dad liitan nahay oo aan waxba ahayn oo bilaa taariikha oo qabyaaladu kala weyn tahay mustaqbalka carruurtooda iyo dantooda dad nool oo wax kala garanaya oo wax u muuqdaan oo damiir leh ma hor yimaadeen Maxamuud wuxuu ka arkay dadkeenu liito oo qabyaalid shootay muyna hor yimaadeen kaaga daran wixii maalinta uu dhaafsaday hawadeena uu haysto akoonkiisa maanta ku jira markii lagu dabageli waayay lagu xisaabtami waayay ee xitaa saxaafad soo qaadata la waayay oo kula xisaabtanto sheegta wuxuu marayaa inuu ku gumaysto saxaafadii iyo haddii alla ku roonay baarlamankii iyo cid walba uu ku gumaysto wixii ayaga ka dhacay hawadooda siistay oo akoonadiisa ku jira maanta maalintu imanayay Somaliland ee dawladda Axmed Siiraaye u magacaabi doonto xilka tiirka waa laga soo bixiyay Maxamuud shuurku ku imanayo soo xidhina ragii ka bixiyay waa joogaa faramaran buu joogay maantana akoonadu waa buuxa inagamuu taginoo tuug xishooda muu noqonay waa kaa maanta baarlamankeenii la dhaariyey bannaanka ku dhaarsanaya ee dastuurkii iyo shuruucdii waddanka u taalay intuu baabiiyu burburiyey raggii bannaanka u dhaarsaday ay sharci darro iyo shaar isaga leega ay u tolayaanu xisbi kula soo baxo waa nasiib darro weyn inuu ninkii taay noo geystay dastuurkeennii iyo baarlamankeenii iyo dowladnimadeena haddana uu khatar ku yahay oo uu dagaal ku wado may dhicin maanta ka horow waxa golayaashiinii ka soconaya ee guursadayay baarlamanka iyo xeerarka sidaa loo walaaqayo ee bannaanka lagu soo koranayo horaa biyaha loogu dhigay qaar yaa inoo keena kuwii biyaha loo dhigay ganacsataa keentay baa layidhi baarlamankana sujuud baa lagu mariyey waa taariikhda markii koowaad ee Somaliland saas ka dhacdo dawladda laga qeylin jiro loo dhigay faragelin bay ku haysaa doorashooyinka iyo baarlamanka iyo loo dhigay wax marsan jirtay banaanka nin jooga inuu wax marsado waa taariikh noo koowa dawladdeena ayaan fursad siisay oo kara labada nin ee soo maray ee Xirsi iyo Maxamuud Xaashi ninna isagoo adduunyo iyo dilaal ula galay buu Soomaaliya ka saaray ku meel gaarkii 2012 oo dabarkii xeerkii noo kala yaallay uu meesha ka tuuray oo hoos ahaan gaar ula shiray oo isaguna uu qiranaya inuu gaar ula shiray hoos ahaan ayaguna ay qirayeen inay hoos wada shirayeen wax inaga soo galay Soomaaliland ahaan inagu maqnaana may jirin in nimankaasi si ay adduunyo ku heli laayeen ay ka shaqeynayeen waxa la dilaalayana waa nolosheenii iyo mustaqbalkeenii aayaheennii oo maantaba qayrkeen oo ina dhex yaallay oo aan awood u lahayn uu dadka samaynayo waxa leeyahay shacabka reer Somaliland war haddaad dad tihiin oo inuu damiir leedihiin oo wax kala garanaysaan Maxamuud iyo noociisa qabyaalada ku taageeranay iska fogeeyay ciyaal intuu lacag siiyo xaafadooda oo ciyaarsiyaabo ka boornay ay ugu sheega jokorkii siyaasadda iyo nabirigii siyaasadda isagoo siyaasadda ay mas'uul ahayn waxay nagu sameeyay waxaan leeyahay
noloshiinna iyo mustaqbalkiinna ka fikira oo ha ka fikiraan shakhsi saa u difaaci leydin qabiilku doonahaada waxaa arkaysaa in laydiin tashaday oo wadaad iyo waran leh soomaali meel ay joogtaba idiin tashatay shanta soomaaliyeedba inagoo waxba ka haysan bay noo tashanayaan siday noo baabiin lahaayeen mid qurana dhibaato kuma hayna inagu waa siday u noolaadaan siday dowlad u noqdaan siday wax u qabsadaan siday idinka dheereeyaan waxa weeyaan laynagula dagaalamaya nairobi waa arkaysa maxay ka soconayay shir culamaa la gelayaa baa la yidho mustafiya bay naga tegay innagaya niman culamo sheeganayaan uu isu yimaada waxaa kale isugu imanayna innaga in laynoo tashanaya waxaa isu yimi wax alla wixii somalilan la dagaalamaya necbaa oo wadaad iyo waran laba ah oo sheekh iyo shaydaan iyo nooc waliba ku jiro waxa mideeyey sheekh mustafe iyo naagii timaa qaawanaa iyo kuwii kale warbaahintii nagala dagaalami jiray carruurta kufsaday ee uu ku jiro ina xirsiga kanada ka yimi waxa mideeyey waa dagaalkeena somalilan dariiqa qura u bannaan waa etoobiya inta kaleba cadow baa kaga xeeran inay wax noqdaan aan rabin etoobiya maalin kama maarano nolosheennaa ku dhisan dhaqaalaheennaa ku dhisan in iyada inta laynoo soo kaxaysta laynagula dagaalamina waa la doonaya fahad yaasin wuxuu qoraya waa arkaysa ha loo soo kaxaysta buu yidhi dekedaa hala siiya buu yidhi airspace masar iyo turkiga oo ha qabsadaan xeebaha somalilan ninka sidaa lehi waa ninkii shalay 4 dekedood bixinayay waa ninkii shalay etoobiya xeeb aanu degin siinayay isagoo oo stateless oo ka dhashay jilib yar oo feerfeer dega oo soomaaliya meelba ka degin isaga iyo farmaajo oo garbahaarey dega ayaa xeebaheenna bixinayay si ay inagayna ugu karbaashan etoobiya intii lagugu karbaashi lahaa inaad walaal ka dhigato oo ayaga iyo sharkooda aad ka hoos gashaabaa danteenna ku jirta inaynu guushaa aynu gaadhnay ee cadowgeennii ka wada qaylinayo difaacana inu isgarab taagno ayaa laynooga baahan yahay hadalkii baan ku soo goynayaa ninka xildhibaanka ee shalay hadlayay guruujon u hambalyaynayo qof waliba qofka ku beegan ha iska celiyo dilaalku dilaalka ha iska celiyo wartadu wartada ha iska celiso maayarku maayarka ha iska celiyo baarlamanku baarlamanka ha iska celiyo madaxweynaha ha iska celiyo qof cid waliba cidda ku beegan ha iska celiso dadkii siyaasadda ka soo horjeeday ee ku dagaalamayey ee mucaarad iyo maxaafid balahaa bay sukan raacay hadday noqonayso kuwa hawiye ee mucaaradka iyo maxaafidka ee dowladda haysta farmaajo iyo fahado xasan sheekhaan arki karin ba ayay midaysay arrinteenu waxaa laynooga baahan yahay guusheenna inaynu ka dhawaajin dowladdana waxaa looga baahan yahay milil korkii lama dhaye dowladay madaxweynuhu waa dadaalaysaa daacad baa dalka u tahay dagaalka ku qabsaday ninka qura kama baxeen waxa kaa dhiman baan kuu sheegayna rakaabkii kula dagaalgeli lahaa ma haysatid haddaad haysan lahayd ood xulan lahayd inta daacaddaana beri horaad dalkan a kala hagaagi lahayn cadowga somalilan waxa dib kuu dhigay raggaagii baanad wadan qaar dagaalka dhinaca kale kaga jira ayaa ku badan dowladdaada oo raadka markaanu gurro uu noola gelaya odhan mayno waa hebel iyo hebel oo babli ka sheegi mayno madaxweynow waa dadaashay waa lagu dulmay somalilanna waa la dulmay adna waa lagu dulmay been baa lagaa sheegaya inankaagii oo maqan oon hargeyso joogin tala leeya ina muusaa ku dhex leynaya hargeysa dadka waa ribo waa musabid waxaa lagaaga baahan yahay inta kaa dhiman waa intaan kuu sheegnay dadkaagii daacadda ahaa oo qabiil wali iyo gobol walba iyo degmo waliba way buuxaane xulo